إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyadeeyo geeridii xanuunka badan ee ku timid walaalkeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Cali Mahdi Maxamed. waxaan uga tacsiyadeynayaa dhammaan qoyskiisa, eheladiisa iyo shacabka Soomaaliyeed. waa geeri xanuun badan. madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Cali Mahdi Maxamed wuxuu ahaa ganacsade, wuxuu ahaa nabadoon, wuxuu ahaa siyaasi rugcada ah, waana haliyey ka baxay ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, qoyskiisa iyo eheladiisaba inuu Ilaahay samar iyo iimaan uu ka siiyo. waxaana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayaa jannatul firdaws inuu Ilaahay ugu bishaareeyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. bismillahir rahmaanir rahiim. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan tacsi tiiraanya leh aan u dirayaa qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allah u naxariistee madaxweynihii hore ee dalka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday dalka Kenya. waa geeri xanuun badan oo si weyn ay u wada dareemeen shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Allah u naxariisto madaxweyne Cali Mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka. waxaan ku xasuusanahay sidii ay uga go'nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada Soomaaliyeed oo dadaal muuqda uu ku bixiyay. waxaan muddo 3 cisho ah aan hoos u dhigi doonaa calanka jamhuuriyadda si aan u muujino murugada geerida xanuunka badan ee ku timid madaxweynihii hore ee dalka, iyadoo la magacaabayo guddi qaran oo ka soo shaqeeya aas qaran oo loo sameyn doono marxuumka si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyay dalka iyo dadka Soomaaliyeed. marxuumka alle waxaan u weydiinaynaa inuu hooygiisii ka yeelo jannatul firdaws, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay, uu ka geeriyooday. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyadeeyo geeridii xanuunka badan ee ku timid walaalkeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Cali Mahdi Maxamed. waxaan uga tacsiyadeynayaa dhammaan qoyskiisa, eheladiisa iyo shacabka Soomaaliyeed. waa geeri xanuun badan. madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Cali Mahdi Maxamed wuxuu ahaa ganacsade, wuxuu ahaa nabadoon, wuxuu ahaa siyaasi rugcada ah, waana haliyey ka baxay ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, qoyskiisa iyo eheladiisaba inuu Ilaahay samar iyo iimaan uu ka siiyo. waxaana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayaa jannatul firdaws inuu Ilaahay ugu bishaareeyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. bismillahir rahmaanir rahiim. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan tacsi tiiraanya leh aan u dirayaa qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allah u naxariistee madaxweynihii hore ee dalka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday dalka Kenya. waa geeri xanuun badan oo si weyn ay u wada dareemeen shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Allah u naxariisto madaxweyne Cali Mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka. waxaan ku xasuusanahay sidii ay uga go'nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada Soomaaliyeed oo dadaal muuqda uu ku bixiyay. waxaan muddo 3 cisho ah aan hoos u dhigi doonaa calanka jamhuuriyadda si aan u muujino murugada geerida xanuunka badan ee ku timid madaxweynihii hore ee dalka, iyadoo la magacaabayo guddi qaran oo ka soo shaqeeya aas qaran oo loo sameyn doono marxuumka si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyay dalka iyo dadka Soomaaliyeed. marxuumka alle waxaan u weydiinaynaa inuu hooygiisii ka yeelo jannatul firdaws, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay, uu ka geeriyooday.